xaaladda magaalada Ceerigaabo ayaa ka sii dareysa daqiiqad ka dambaysa halkaasna waxaa isku risaaseynaya ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Somaliland iyo sidoo kale kooxo hubeysan oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin SSC Khaatumo gudaha magaaladana ku sugan dhaawacyo iyo dhimasho ka dhalatay israaseen dhexmartay dhinacyadaas ayaan halkan doonayay in kugu soo baahiyo saaxiibayaal soo dhawaada haddii uu muuqaalkan soo gaaray si jargaraw saaxiibadana la sii wadaagay qaybta hoose ee faladan aragtida nagu wadaag mar kale soo dhawaada saaxiibayaal wararka ka imaanaya gudaha magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxa ay ku soo waramayeen in halkaas dagaal kooban uu ku dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Somaliland iyo sidoo kale kooxo hubeysan oo la sheegay inay gudaha magaaladaas ku sugnaayeen oo waliba garab ka helaya dadka deegaanka dagaal la sheegay in la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaana ku dhexmaray gudaha magaaladaas Ceerigaabo ee gobolkaasi Sanaag qasara kala duwan ayaana jira oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada la xaqiijiyay waa 3 ruux oo midahay habeenay tahay waxaana la sheegayaa in loo qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha magaaladaasi kuwaasi oo la sheegay in la dhigay sidoo kale waxa jira dad kale oo iyagana dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen dagaaladaas halkaas ku dhexmaray dhinacyadan oo iyagana loo qaaday xarumaha caafimaad oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo ee gudaha magaaladaasi Ceerigaabo waxa la sheegayaa marka la fiiriyo xaaladda hadda taagan iyo ciidamada halkaas ku sugan rasaasta ay adeegsanayaan in qasaaraha uu halkaas ka sii badan karo magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag tiro dhowr jeer ah waxa ka dhacay dilal loo geystay dad ka soo jeeda maamulka SSC Khaatumo waxaana sidoo kale dhacay dagaallo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo ciidamada booliiska Ceerigaabo kuwaasi oo ay ka dhasheen qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka maanta ma ahan kii ugu horeeyay waxa jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo hore uga dhacay halkaas iyo dagaallo kooban kuwaasi oo dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada booliiska Somaliland ku dhexmaray ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo qasaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi laakiin waxa la arkayaa magaalada oo ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska Somaliland iyo sidoo kale kooxahaasi hubeysan oo iyagana dhinaca kale ku sugan isla markaana isweydaarsanaya hubka noocyadiisa kala duwan Somaliland oo isbedel dhinaca hoggaanka uu ku dhacay ilaa iyo hadda wax war ah oo ay ka soo saareen dagaalkaasi ma jiro laakiin waxa la filayaa in war-saxaafadeed uu ka soo baxo kaasi oo looga hadlayo dagaalkan kooban ee maanta ka dhacay Ceerigaabo sidoo kalena sababay dhimashada saddexdaasi ruux iyo dhaawac tiro kale oo intaas ka badan booliiska Somaliland ayaan ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah ka bixin dagaalkaasi kooxdaasi hubeysan iyo ciidamada booliiska u dhaxeeyay waxaana wararku ay sheegayaan inta waa dadka deegaanka qaybtood ay bilaabeen inay ka baxaan magaalada si ay kaga fogaadaan dhibaato ka soo gaarta dagaalkan ciidamada booliiska Somaliland iyo sidoo kale kooxahan hubeysan ku dhexmaraya gudaha magaaladaasi Ceerigaabo ee gobolkaasi Sanaag labada dhinac ee Somaliland iyo sidoo kale SSC Khaatumo ayaa wali si weyn difaacyo adag ugu kala jira waxaana dhawaan ay ahayd xuduudda labada dhinac ee SSC Khaatumo iyo Somaliland ay wadaagaan uu dagaal xoogan ka dhacay taasi oo la sheegay in ugu dambeyn ciidamadii Somaliland ee la sheegay inay weerarkaas soo qaadeen dagaalkaas looga adkaaday SSC Khaatumo iyadoo dhankeeda kama aysan hadlin kooxahan hubeysan oo la sheegay inay iyadu soo dirtay oo gudaha magaalada ay ku sugan yihiin dadka deegaankana garab ka helaya sidoo kalena waxa warbaahinada ay qorayaan in tirada ciidamo ee kooxahaasi hubeysan ee halkaas ku sugan aanan la ogeyn tiro ahaan laakiin ay jirto in magaaladaasi dadka ku dagaalamaya ay sheegayaan inay yihiin kaliya dadka deegaanka iyo ciidamada booliiska Somaliland ee halkaas ku sugnaa